gumaad sababay dhimasho aan tiro iyo xisaab lahayn ayay galmudug daris la noqotay hal sano oo madaxweyne qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa Cali Ciid ay talada maamulkaani hayaan. xasuuqa ugu badan waxa uu ka dhashay dagaal beeleedyo lagu guuldareystay in xal laga gaaro iyo weeraro ay al-shabaab ay geystaan oo xitaa ay u suurto gashay in magaalooyin 10 sano ka hor ay haweysan waayeen ay weeraraan. waxaa maalinba maalinta ka dambaysa soo badanaya dagaal beeleedyada iyadoona maantay ay fara ku tiris tahay beelaha 12 beelood ah ee dega Galmudug beel heshiis la ah ama laba beelood oo isku deegaan ah oo aysan dhibaato ka dhex soconin. waxa sanadkan cusub ee 2021 oo muddo bil ah laga joogo dhacay in badan oo dagaal beeleedyo ah iyo waliba weeraro kala duwan oo al-shabaab soo qaadayaan iyadoona ay jiraan meelo badan oo fooda ay isku hayaan beeluhu halisna u ah inuu ka qarxo dagaalo. muddo 2 bari ah oo xiriir ah waxa dagaal beeleed uu ka socday magaalada Xananbuure ee gobolka Galgaduud halkaas oo 2 beelood ay ku dirirayeen. sidoo kale waxa maanta dagaal beeleed uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Gaxandhaale iyo Gallisoor. deegaanada Bangeele iyo Xinjilab ayaa inta u dhaxaysa iyaduna ay isku horfadhiyaan 2 beelood oo labada deegaan ka soo kala jeeda. Balanballe iyo Gurceel inta u dhaxaysa ma jirto wax nabad ah oo yaala halkaasi. beel walbana beesha kale ayay ku jeedaa. al-shabaab habeennimadii xalay ahayd waxay hoobiyaal ku garaaceen magaalada caasimadda ah ee Galmudug ee Dhuusamareeb xilli ay ku sugan yihiin madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo kuwa federaalka. arrintaas oo muujinaysa fashilka maamulkani ee dhinaca arrimaha gudaha iyo amniga gudaha ee deegaanadani Galmudug. madaxweyne qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa iyo waliba mas'uuliyiinta guud ee Galmudug ayaa u muuqda kuwo aan u jeedin xal u helidda xaaladaha isbiirsaday ee ka jira deegaanada Galmudug. fashilka ugu weyn ee dowlad goboleedkan haystana ayaa ah in siyaasadda gudaha aysan caga weyn ku taagneyn halka uu awoodda u saaray maamulkaani siyaasadda bannaanka ama maamulka dibaddiisa ah. waxayna muujiyeen madaxda Galmudug inaysan mas'uuliyadi ka saarnayn dhibaatada kala haysata shacabka Galmudug oo maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraysa. waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xilif, telefishinka caalamiga ah Sooyaal, degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud.